magacaygu waa Axmed Cismaan waxaan ku noolahay magaalada Burco waxaan ahay sawir-qaade waxaan runtii aad ugu faraxsanahay tartan loo qabanayay dhalinyarada Soomaalida ee sawir-qaadayaasha oo ay u qabanaysay hay'adda USAID inaan qayb ka ahaa kana mid noqday runtii dadka ku guuleysta kaalmihii loo tartamayay mid kamid ah waxa lagu tartamayay 3 qaybood oo 3 category ama 3 nooc baa lagu kala tartamayay mid wuxuu ahaa dhanka horumarka development waxa la yiraahdo sawirna wuxuu ahaa sawir muujinaya landscape ama dabeecadda ama nature-ka sawirka saddexaadna wuxuu ahaa sawir culture-ka muujinaya ama hidiyo dhaqankeena marka 3 qaybood waxaan ku guuleystay qayb kamid ah oo ah qaybtan hidiyo dhaqanka marka sawiraan ka qaaday 5 jiil oo kala duwan oo ah macooyo ayeeyo hooyo inanteedii iyo inantay si dhaleen oo xidhan dharkii hidiyo dhaqanka ahaa sawirkaas wuxuu ka mid yahay sawirada dhanka dhaqanka ku guuleystay waxaan aad runtii ugu mahadnaqayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa kale oo aan aad ugu mahadnaqayaa hay'adda USAID oo sanadkan oo tartanka noocan oo kala oo sanadla ah qabata sanadkiiba hal mar dhiirigelin iyo wax runtii lagu dhiirado ayay u tahay dhalinyarada kamarada xirfadaha ku shaqeysta ay ku horumarinayaan xirfadoodii ama shaqadii ay qabanayeen waxaan runtii kale u mahadnaqayaa family-ga aan sawirkan ka qaaday oo ah family-gayga oo iga ogolaaday inaan sawirkan baahiyo tartankana ka qayb galo marka waxaan leeyahay USAID aad iyo aad baad mahadsantiin